dhismahan daadiisu waxay ka badan tahay 4700 oo sano. Culayska dhagxaanta uu ka samaysan yahay waa celcelis ahaan 2500 oo kilogram halkii dhagaxba. Kuwa seeska ama salka hoose yaala waa kuwa ugu culus oo ilaa 70 tan ayay gaarayaan. Wadarta dhagxaanta lagu dhisayna waxay ku sheegaan ilaa 2.3 milyan oo dhagax. Dhererkiisu waa 147 mitir. In ka badan 3000 oo sano ayuuna ahaa dhismaha adduunka ugu dheer. Kan waa haramka Khufu oo ku yaal Giza oo ah qayb ka mid ah magaalo weynta Qaahira ee dalka Masar. Ahraamaha waxaa dhisay oo ay sumadda ugu weyn ee lagu garto tahay faraaciintii Masar. Inta badanna boqorradii soo maray faraaciintu wax ayay kaga qayb qaateen dhismahooda. Fircoonka ugu wax qabad badan marka ay noqoto dhismahoodana waxa uu ahaa kii ilaahnimada sheegtay ee Quraanka lagu xusay, loona badinayo in uu yahay Ramsiiskii labaad. Sababta ugu weyn ee u dhisi jireen waa inay ahraamuhu faraaciinta u ahaayeen qabuuro lagu duuga meydkoodana lagu ilaaliyo markii ay dhintaan boqorrada iyo xubnaha qoyskooduba. Kor markii laga fiiriyo waxa ay u muuqdaan buur meesha la qotomiyay laakiin waa dhisme. Gudaha ayaad u gali kartaa oo waxay leeyihiin ilin laga galo. Inkasta uu ciriiri yahay dariiqa la sii maro misna gudihiisa waxa ku kaydsan siro aan ilaa hadda la faagin oo ku saabsan faraaciintii. Su'aasha ugu adag ee ku saabsan ahraamaadkan Masaarida waxa weeyaan sidee loo dhisay haramkan ka samaysan dhagxaanta sidan u waaweyn. Tusaalahan dhagax intaan leeg oo dhererkiisu gaaraya ilaa 1 mitir iyo 0.9 oo kale ama ilaa 2 mitirba base-na u ah ilaa 1 mitir iyo bar. Culayskiisuna uu yahay bay dhahaan dhagxaantan halkan yaalay 6 iyo bar ilaa 10 tan. Sideebay dad 4700 oo sano ka hor noolaa u dhiseen oo ay u qaadqaadeen dhagxaanta sidan leeg. Tanna waa mid ka mid ah xiraalayaasha ugu waaweyn ilaa hadda aan laga jawaabin oo ku saabsan ahraamaadka. Faraaciintu xilligay noolaayeen oo ahayd xilli aad u fogeyd, bilaadankan is ilbax sidaas u ahayn lana haysan qalab lagu qaadi karo dhagxaan intaan la leeg. Sideebay u dhiseen weeyaan su'aasha ugu adag. Marka aragtiyo kala duwan ayay keenaan ama theories kala duwan oo ku saabsan sidee ahraamaadka loo dhisay. Qaarkood way ku talax tageen oo waxay dhahaan bilaadanba ma dhisinay waxa dhisay Ilianiska ama waxyaalahan ay dhahaan waxay ka soo degaan samada sare. Inkastoo aan la garanayn sida loo dhisay iyo gacanta dhistayba, mar waxa la sheegaa inay ku xamaalan jireen oo ay dhiseen adoomadii reer Bani Israa'iil. Mar kalena waxa la sheegaa inaysan dhisin adoomo la qasbay ee ay ku faryaraysteen shaqaale xirfad leh oo yaqaan waxa ay sameynayaan. Lama garanayo tirada dadka qayb qaata dhismahooda ha yeeshee 20 sano ayaa haramkiiba lagu dhisay ayaa lagu qiyaasaa. Gaar ahaan xilliyada barwaaqada ee webigu buuxo ayay dhisi jireen ayaa la sheegaa. Ahraamuhu hal mid kaliya maaha, Giza oo kaliya waxa ku taala 6 haram, 3 waaweyn iyo 3 yaryar. Haramka labaad ee ugu dheer waa Khafre. Fiinta sare waxa ka marsan nuurad cadaan ah. Waxa la sheegaa in goorta duhurkii ay qorraxda ku dhacdo uu dhalaali jiray waagii hore. Haddase da'da iyo cimilada oo qalafsan ayaa midabkii dhalaalka ahaa dooriyay. Labadan haram kan oo la yiraahdo Khufu iyo kaas oo la yiraahdo Khafre dabcan loogu magac daray fircoonadii dhisay. Awal waxa loo mareyn jiray inuu kaasi dheer yahay laakiin buur ayuu saaran yahay. Kan ayaa sadheer sida runta ah maadaama god uu ku jiro sidaas ayaa gaabinaysa. Waxay dhaheen fircoonka xilliga joogay ayaa dhistay. Shirka caadiga wuxuu ka yahay libaax, madaxna waxa uu ka yahay qof ama wuxuu madaxiisa dhan u wada eg yahayba wajiga macalaatimaha waxa uu eg yahay suuradii fircoonada oo kale. Marka magaciisa waxa la dhahaa Sphinx ama Carab ahaan Abul Hul waxa laga wadaa bay dhaheen aabihii argagax iyo baqdingelinta. Laga yaabo inuu xilliga u sameeyay dadkii shacabkiisa xilliga jiray ama dad yagu kale oo ay dagaalami jireen si uu ugu baqdingeliyo. Culayska haramka Khufu waa 5.7 milyan oo tan. Halka dhismaha hadda adduunka ugu dheer ee Burj Khalifa uu yahay 500,000 oo tan. Ahraamuhu Masaarida waa u il dhaqaale oo sanadkii dalxiisayaal 10 milyan ah ayaa yimaada Masar. Dalxiisayaashaasna bartilmaameedkooda ugu weyni waa ahraamaha. Sidoo kale waa u astaan fan oo waxay ilbaxnimadoodu gadaal ugu laabanaysaa 5,000 oo sano. Ayaamaha kan Soomaalidu aad ama bilihii u dambeeyayba Soomaalidu aad ay u imaanaysa dalka Masar. Waxay ku arkeen oo ay u imaanayaan wax rabna inaan weydiino Umar oo halkan igula socda. Asli waxyaabo ugu muhiimsan oo ay Soomaalida halkan u yimaadaan waxa kamid ah caafimaadka, deegaanka, waxbarashada kale. Sababaha ma garanaysa ay u imaanayaan halkan waxa kamid ah sida caafimaadka raqiis ah, nolosha asaasiga oo iyadoo aad u jaban sida waxbarashada kale. Marka iyo deegaanka kaleba
marka waxaa moodaa inay magaranaysaa dee waaga dadku waxay u tegi jireen Turkiga oo kale caafimaadka loo aajir Hindiya oo kale Malaysia oo kale wadamo kale laakiin hadda waxaa moodaa halkan inay Soomaalidu aad u fahmeen maadaama halkan ay tahay meel aad ugu muhiimsan caafimaadka ama waxbarashada ama deegaanka oo kale. Cumar waa maamulaha Welcome to Masar oo ah platform ay ku caawiyaan dadka Soomaalida ah oo ay ku qoran yihiin su'aalaha iyo jawaabaha la xiriira dalka Masar. sidoo kale waxay ka caawinayaan adeegyada la xiriira socdaalka ee dalkan ku saabsan sida deegaamaynta caafimaadka waxbarashada iyo sidoo kale soo saarista fiisiyaasha dalkan. waxaad booqanaysaa www.welcometomasar.com halkaas ayaad ku arkaysaa adeegyada ay bixiyaan oo dhan.